kastay joogtana aad baan u salaamayaa muhiimadan caawa fiidiyowgan u duubaya waxa weeyaan in rag baa jira ku ceesha barobagandada aflagaadada dumarka iyo ceebaha iyo cayaha iyagoo dumar la dhashay oy dhaleen oo waxaan ku yidhi ay qabaan oy la dhasheen oy dhali doonaan ayaa rag baa jira ku ceesho ku tamariya aflagaadada iyo barobagandada dumarka raggaasaan caawa la hadlayaa waxaa jirtay saakun baan ku arkay facebooka inan yaroo aada u caataa oo araggiisuba aanu run sheegayn qof baaba wax kaa soo sheega oo hadalkiisa markaad ka yaabto codkarnimadiisa ayaaba tidhaahdaa waa nina iska daawaa way ka dhacday ama saasaabay ka noqotay laakiin midaad mooddo inay gaaja ku raagtayo codkiisuba codkarna aan ahayn oo hadalkiisuba aanu run sheegayn ayaa wuxuu yidhi waxaan ku maqnaayoon xogogaal oo arrin xogogaalaan idiin wadaa in badanaan soo baadhay xamda kuwiino intuu ninfankii ka saaray tiri business baan furanayaa sidan iyo sidan iyo sida budhuu balaa ayaan ku maqnaayoon arrinkii baan soo waday horta kaati baatay baan ku leeyay ceebaha dumarka iyo waxaan ku yidhi barobagandada u arsaaq doontay intay dadka ilaahaya arsaaqyaa fataax leeyiin ayaad adigu been iyo kaatibnimo iyo wax maalinta qiyaamo laysooga dambayn doonaad bartaa u furatay qalbiga inaad caydh ka tahay baan kuu sheegayaa adiga iyo nooca kula midkaaba nooca adiga iyo nooca kula midkaaban la ee kula midkaa ee arsaaqka doona ee nolol maalmeedkooda iyo ceeshkooda iyo arsaaqdooduba dee ay ku xidhantahay halkaa intay soo fadhiisteen youtube yar intay samaysteen ka raadinaya nolol maalmeedkii cay iyo aflagaado iyo been abuur hablo horoo badan baa la wadwaday miidiyaha oo adiga iyo inta noocaagaas hadda ilma xalaal ma odhan karo waa ilma xalaal because qof hooyo dhasho gabadhi dhashay oo ilma xalaala halkaa intuu soo fadhiisto been abuur intuu sameeyo qof bini aadana ceebihiisa iyo barobagandadiisa ma wadwado ma garatay manaan jeclayn inaan ka soo hadlo si kastoy u wada jireen ama aniga ay igala hadli jireen ama waxay doonaha soo qoraan kamaan jawaabi jirin laakiin waxaan caawa uga soo hadlay uga soo jawaabay soomaalidu waxaa la yidhi dha keliyay leedo waxbay ku maqashaa qaar badan baa is odhan doona waa xaqiiqa waa run waxaan ku leeyahay qalbigaad fakri ka tay qalbigaad aada fakri uga tay ilaahay arsaaq dhaanta beenaha aad iga samaynaysa intaad halkaa kamarad hawl u gashayood kamarada u soo qaadatayood ummad dhan oo ku daawanaysa aad been u sheegayso isku qajil baan ka odhan lahaa oo camal intan dhaama raxmaankan ku weydiinaya ilaahay ha ku siiyo marka hore intaad isu hawlayso qof beenaad ka samaynayso ood leeday war xaqiiqa kuwa dhagaysanayana waxaan leeyahay ilaahay dee wax dhaamaha idin siiyo intaad kaatibka halkaa soo fadhiistay aniga iyo hablo badan oo sharaf laba wax ka sheegaya adigana camal alla beenaha iyo dee wax laysooga dambayn doono afkan aad buu u fududiyey markaad leedayeed qof been abuur ka samaynaysa laakiin maalinu aad u cuslaan doono ood caddaymaheedana aad soo xambaarsanaan doontaan rajaynayaa inaynu meel tan ka awood badan aynu ku kulanno markaan waxaan leeyahay haddaad beenaha aad wadaan ka waantoobi weydaan ilma xalaalka lama hadlayaanu dad badan oo sharaf labaa jiro youtube yele oo siyaabo kale u isticmaala laakiin ilma xalaalka anigu lama hadlayo nooca ilma xalaal kuma tilmaami kara anuu yee waxaan la hadlayaa nooca waxaa ku shaqaysanaya haddaad ka waantoobi weydaan wallaahi waa laydinka shaqayn oo gacan bira ayaan iskaga kiin qaban doonaa maalmo horena waxaa jiray in la soo geliyey hees aan waqti hore qaadnay oo malaa ku saabsanayd xashiishka iyo dowladda hoose iyo aduu arrimo saasa markaa oo laga dhigay hees cusub xamda kuwiin baa fankii ku soo noqotay sidan anuu fanka idinku idimaydaan soo gelin idinkana idinkamaan bixin ma garatay umanay baahnayn ee sababtan uban caawa idiin raacinaya inaan ka yara meesha kasoo hadaaqaayo haddaan ka baxayna idinkamaan bixin haddaan soo galana idinku idinmaan soo noqon baan leeyahay
marka mana garanayo sababta loo soo dhigay wallaahi anuu kooxdii aan ka tirsanaa inankii uu musicianka ahaa iyo intii dee aan isku bahda fanka aan wadahayn waan ogeysay intii heesahayga haysay heestan waqti xaadirka lama soo dhigin YouTube lama soo gelin Axmed Weli waan u sheego wixii heesayga haysay dhulka dhig badankood habla kalaaba qaaday oo heesaha qaaday marka dee ma garanayo reasonkii loo soo dhigayo ama loo soo gelinayo ma ku xumayn baa maxay ka tay heesa kale oo ama xashiishka ama dee wacyigelin nadaafada lama waayino fanaanin way buuxaan igana cod macaan igana qurux badan ma garateen marka waxaan leenahay iyagana aynu kala xishoon ixtiraam iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo aynu soo haynaa dad walaalada iyo baatiin dad ixtiraam iyo karaamo ku kala tagay baynunay oon marnaba ceed ku farxaya iyo kii ku fanka dibadaan ka ahay qowlkaadigu ogeydeen wixii idinkaan afkayga idinka sheegay ayaan isku ognahay aad baan idin salaamayaa aad baan inta i jecel iyo inta i neceb baan halkan uga salaamaya caawa anigu waan idin jecelahay qalbi saliimaan idin hayaa laakiin midkaas oo kale waxay noo ballanay inaan isku qabano dadka nooca u dhaqmaaya inaad idinkuna fiirsataan maaha wanaagiinaan jecelnay ixtiraamkiinaan idin haynaa ma garateen iga raalahaadaan idin leeyahay haddaan caawa anigoo yara kacsan idin soo galay marka waxaynu leenahay dadkaasi ka waantoobaan arrimaha noocaasa sharaf dhacaa ay dadka ku xagxaganayaan waxba nagu yeeli maayeen laakiin way ku xagxaganayaan dadka oo ilaahay baa uga dhigay ilaahay ma odhan karno ilaahay waxun shaqo kuma lehe shaydaan ayaa dirsaday oo iliyuun dadkan cayda dadka aflagaadada dadka waxaasaad lacag ku helaysaan inaad caan ku noqotaan caannimadiina halkii wax wanaagsan laga raadin lahaa ayuun baaba waxun laga raadinayaa wallaahi bilaahi tallaahi waa aakhiru samaan waa xilligii la sheegay weeyaan baynu ku jirnaa ilaahay dadka xumaanta samaynaya waxaan ku waxaa dadka been abuurkaa soo samaynayay inta la midkaa iyo inta la macaaba raxmaankaynu ka hoos galnay iyagana ilaahay faraj khayr qaba ha u furo